xog degdeg ah oo hadda ay soo gaadhay ayaa tibaaxaysa inuu Mustafa Cagjar ciidankii Liyuga ee uu furimaha dagaalada waqooyiga Itoobiya ka socda geeyay uu shalay amray in dib looga soo saaro iyagoo qayb ka mid ah ciidanku daraad iyo tii ka horeysayba dagaalo lagu hoobtay galay oo dhaawac iyo dhimasho yeeshay. xogtan ayaa waxay intaas ku daraysaa in isla shalay niskii dambe ciidanku ka soo daldasheen aagii furimaha dagaalka oo ay socdaal dheer kadib yimaadeen meel Addis Ababa wax yar u jirta halkaasoo la filayo inay maanta uga soo gudbaan dhanka magaalada Jigjiga kadibna la geyn doono xeradii dhagaxle ee markii ugu horeysay laga soo qaaday halkaasna loogu diyaariyay in lacag lagu qaybin doono ciidankaas. dhinaca kale Mustafa Cagjar ayaa la sheegayaa in Addis Ababa si degdeg ah looga yeedhay. haddaba waxaa isweydiin mudan sababta uu Mustafa Cagjar waqtigan xasaasiga ah u qaatay go'aankan keligii ka soo go'ay ee uusan hogaamintiisa kala tashanin haba yaraatee iyo waxa ku kalifay inuu go'aankaas qaato. waxaa kale oo isweydiin mudan sababta Mustafa Cagjar xilligan Addis Ababa looga yeedhay iyadoo doorashadii shalay dhacday degdegna loo filayay inuu xukuumad u soo dhiso deegaanka. siyaasiyiinta Soomaalida qaarkood waxay u badinayaan in sababtu tahay maadaama ay soo baxday in Mustafa Cagjar la geenayo boos magacaabis heer federaal ah oo uu banaynayo xilka kusimaha deegaanka inuu go'aanka keligii ah ee ka soo saaridda ciidanka Soomaalida dagaalka ka socda gobolka Axmaarada ay tahay ku xumayn uu Abiy ku xumaynayo maadaama uu Abiy ka qaadayo xilkii deegaanka oo Mustafa Cagjar salugsan yahay xilka laga qaadayo iyo beddelkiisa heer federaal oo uusan u arag dalacsiin balse u arko inay dhimis tahay oo sharaf dhac iyo bahdil ku tahay isaga maadaama taariikhdu u qorayso kusiisimo 3 sano ah oo uu aad u jeclaysan lahaa in darajada kusiisimanimada uu uga dalaco mid buuxda oo madaxweynenimo si taariikhdu ugu qorto inuu madaxweyne ka soo maray deegaanka oo wuxuu aad uga xun yahay bay ku doodayaan siyaasiyiintani inuu kusimo ku yimid isaga oo kusimo ah oo aan weli darajo buuxda oo madaxweynenimo gaadhinna la dhaafinayo deegaanka. siyaasiyiinta fikirkan aaminsan ayaa yeeritaankiisa Addis Ababa ku macnaynaya in la daba marinayo dhismaha dowladda cusub ee deegaanku yeelanayo oo cidda lagu soo bedeli doono ay noqon doonto midda soo dhisi doonta golayowga maamulka deegaanka. qaar kale ayaa waxay qabaan fikirkaas ka duwan oo odhanaya sababta uu Mustafa Cagjar ciidanka Liyuga xilligan uga soo saaray dagaalka waqooyi waa maadaama uu ciidanka jab culus soo gaadhay hub culusna aysan haysanin oo aysan dagaalka ka sii mid noqon karin sidaas darteedna uu u soo bedelayo oo ciidan cusub keeni doona. qorshahanina yahay mid ay Mustafa Cagjar iyo Abiy ka wada hadleen oo laga ogolaaday waxayna daliishanayaan haddii aan laga wada hadlin oo aan la isla ogeyn inaan ciidanka laga soo saari kareen furimaha dagaalka oo wax kala daayo ay ugu yaraan caqabad la mari waayo ku noqon lahaayeen faanada Axmaaradu oo diidi lahaayeen in ciidanka Soomaalida dagaalka laga soo saaro. siyaasiyiinta fikirkan aaminsanna waxay yeeritaanka Mustafa Cagjar ee Addis Ababa ku sifeeyeen in Mustafa Cagjar lala soo qabadsiinayo qaabka uu dowladda deegaanka u soo dhisayo iyo inuu ka qaybgeliyo hogaaminta ururka Jooxo maadaama oo ay hogaaminta ONLF iyo Mustafa Cagjar siyaasad ahaan aad u kala fogaayeen taasoo ugu dambeyn sababtay inay ONLF doorashada qaadacday iyagoo eedda u xambaariyay xafiiska guddiga doorashooyinka Itoobiya oo aan cabashooyinkoodii dhag jalaq u sinin isla markaana uu Abiy haatan rabay inuu hogaaminta ururada mucaaradka ah inta uu karo uu kasbado oo kuraas heer deegaan ah ku laalusho. haddaba haddii sababta go'aanka ka soo saarista ciidanka dagaalka waqooyi iyo yeeritaanka Mustafa Cagjar ee Addis Ababa noqdaan fikirka siyaasiyiinta Soomaalida ee odhanaya ciidanka ayaa la soo bedelayaa iyo Mustafa Cagjar ayaa qaab dhismeedka dowladda cusub ee deegaanka lala soo qabadsiinayaa iyo inuu ka qaybgeliyo hogaaminta ururka Jooxo waxaa halkaas ku jirta oo in la isweydiiyo ay tahay hogaaminta ururka ONLF sidee ayay ku ogolaan inay Mustafa Cagjar shalay iyagoon waxba la maamulaynin ay isdiideen inay maanta wax la maamulaan oo talada deegaanka wax kala gooyaan. maxaase la isku aamini ileen isku hadafba lama ahe sidee ayayse suurtagal ku noqon inay ONLFtii 30 sano ka hor deegaanka ka tagtay iyaga oo dowlad dhammaystiran oo iyagu xukumaan haysta inay maanta yeelaan dowlad laga yaabo in 2 boos oo sakaraad ah oo hooyo ku go'ah oo aysan u qalmin bahdilaadna ku ah laga siiyo. sidee ayay
sidayse macquul ku tahay in onolef doorashadii ay shalay diideen ee ay ku tilmaameen xaaraanta inay maanta ka noqdaan oo ay xalaaleeyaan mansab kursi oo la siiyey darteed ilaan haddii ay ogolaadaan inay qayb ka noqdaan dowladda cusub ee lasoo dhisayo waxay ka dhigan tahay doorashadii inay xor iyo xalaal ahayd oo ay iyagu khaldanaayeen ayaa caddaynayaane haddii ay ogolaadaan inay Mustafa Cagjar talada deegaanka qayb kala noqdaanse saami intee la eg ayaa kuraasta deegaanka laga siin jowxo saamiga la siiyase ma ku qancayaan midda kale haddiiba ay dhacdo in Mustafa Cagjar la bedelo oo federaalka la geeyo madaxweynaha deegaankana laga dhigo Aadan Farax ama Axmed Shide ama se xubin kale oo leega ah oon elefna loo soo dhigo inay madaxweyne ku-xigeen qaataan ma laga yaabaa inay ururka oon elef fursad u aragto booskaas si ay dowladda u dhexgalaan oo danta mustaqbalka siyaasadooda ka dhaxarkan waxaa intaasi dheer oo iyadana in la isweydiiyo ay tahay madaxweynihii deegaanka canfartu uu soo baxay oo waa la doortay Abiy Ahmed iyo madaxweynaha canfartana heshiis gaar ah oo in dhulka galbeedka city canfar lagu wareejiyo ah canfartuna dowladda Abiy aysan ka raacin TPLF ayaa ka dhaxeeya si taas loo hirgeliyana waa in Mustafa Cagjar si maamulida deegaanka Soomaalida laga lug bixiyo haddaba sidee ayay awal arba iyo Mustafa Cagjar ku soo wada laaban karaan iyagoo axmaaraduna Mustafa Cagjar ka raacday awal arba oo taageero hiil iyo hoob ah u muujiyeen canfarta Mustafa Cagjarna garabkii axmaarada ee uu ku tiirsanaa halkaas kaga baxay oo walaalkiisii ugu dambeeyay ee Aganyow Tashaagar madaxweynihii hore ee deegaanka axmaarada hawada lagu cunay mase aaminsantihiin in talada deegaanka Soomaalida lagu wareejinayo Aadan Farax oo lagula soo heshiiyey si uu beeshiisa galbeedka city ugu qanciyo in dhulka dhiiga badani ku daatay ee Soomaaliyeed ee galbeedka gobolka city uu canfar u xalaaleeyo dadkiisana duudsiyo